السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيتين صاحبتي مي في عنتين dhacdadeena maanta waxay ka dhacday Ameerika gobol ka mid ah gabar la yiraahdo Jordan oo xaafad degan baa waxay adduunka u jeceshahay in ay maxaa la dhahaa ay naag lacag yeelato noqoto gabadhaanaytood markii soo koraysay reerkooda sabool ay ahaayeen marka waxaa dhacday in oo maxaa la dhahaa gabadhaanaytood ay xaafad degneed ee wiil qabtay boyfriend ah meeshay isa degnaan xaafadii waxay daris yihiin gabadhaan marka ninay daris yihiin oo la yiraahdo Brian oo 49 sano jiro taajir ah guriga uu degan yahay asaa iska leh guri kale wuxuu ku leeyahay oo fasaxyada u tago meel oo biyo agtiisa ku leeyahay ninkan Brian la dhahayo shaqadiisa waxa waaye baabuurta oo qaaliga oo dadka taajiriintu iibiya marka ninkan lifestyle-kiisaba ka heshay sidii ay ku heli lahayd bay maxaa la dhahaa falankeeda ay gashay ninka darisay yihiin marka ayada iyo saaxiibkeedna waxay degan yihiin guri ka soo horjeedo maalin kastay dirshada ka fiirsaa wuxuu qabto goortuu baxo goortuu soo noqdo waxay samaysay maalin maalmaha ka mid ah ninkii Brian la dhahayo 49 jirka dariskiisa taajirka ahaa asoo guriga joogo ee wiilkii saaxiibada ay ahaayeen ee curay dhal waxay ugu keentay dagaal way la dagaashay markii la dagaashay oo sheekada meel xun ay gaartay qolka albaabkay soo furatay way soo carartay ninkii taajirka ah gurigiisa garaacday iga soo gaar iga qabo saaxiibkay wuu idili rabaa naftuu iga qaadi rabaa waxaan rabaa inaa iga badbaadiso ninkan ninkii isku soo tuurtay ninka wuxuu yiri guriga soo gal albaabku xiray booliiskii oo wacay booliiskii oo lalaaya imaada xaafadii booliiskii interview laga qoray wixii oo wiilkaas u geystaa loo qoray anaga raasanayna la yiri booliiskii wuu baxay markii ninkii Brian la dhahayo oo ay rabtay inay qabsato ninkii baa wuxuu yiri maadaama aad haysan meel aado maxaa la dhahaa arrintaas isku ka daba dhacayso qolkan waa iska degi kartaa marka ayadan intaas leeba rabtaba markay dhowr maalmood ay joogtay qolkii ninkan businessman-ka ah waxa waaye xisaabtu ku fiican yahay gabadhii oo yimid wuxuu yiri meeshan waa ila degnaan kartaa laakiin ijaara iska bixinaysaa qolkan sidan ma ku sii degnaan kartid ayadan hayay tiri laakiin ayada waxa waaye number 1 aan shaqaysanin ma shaqaysato waay waxay rabtaa qof wax u soo shaqeeyay inay ku noolaato adduunka maantana way dhamaatay sheekadaas nin taajiraan helaa aan lacagtiisa ku baashaalaa oo aan maxaa la dhahaa guri dhinac kala degnaanaya filinkaas adduunka waa kasoo qarxay hadda iyada waa 21 sano asagana waa maxaa la dhahaa 49 sano berigii hore ragga da'daas oo kala jira ama ka waaweyn markay gabar yar helaan farxad ay dhulka isku jiidi jireen waxay dhihi jireen gabar yaa heshay khalaas hadda laakiin waxaa u moodaa raggii way aqliyeysteen waxay ku aqliyeysteen in maxaa la dhahaa aan si iskaarsi lacag loogu qaadin waxay sameeyaan yaraaw weynaaw sidaarti ahaw haddii oo maxaa la dhahaa uu rabo lacagtiisa ninka wuu ku siinaa hadduu rabinne waxaa helaysa male adila isla goynaysid oo nin waayeel ah inaad lacag ka qaadato isku dayaysid laakiin adduunka waa la xisaabtamay markaa aragtid youtube-ka iyo meelahan social media markaa aragtid markii la sheekeynayo ragga interviewada iyo podcastada marka laga qaadayo dadka ajnabiga iyo dadka soomaalida xataa waxaa ogaanaysaa nin kastaba inuu barkintiis dhiganayo meesha uu jecel yahay maalkiisana naftiisa le inay ku fiican tahay oo qof kale ay ku fiicneen ragga marka way dhamaatay filinka hore ay naagaha iska dhadhicin jireen ma shaqaysanayno maxaa la dhahaa nin taajiraan aruusa oo wax siinayo taas aniga aragtideedu waay iyo meelahan waxaa kasoo maqlay marka qof alaale iyo qofkii ibni aadan ah uu rabo nolosha wax ka baxsan lacag zaa'id ah taajirnimo waxaas dhan hadduu rabo qofka gabar kastaba waxaa la rabaa inay ilaahay tawakasho kadibna wax ilaahay uu raalli ka yahay oo shaqo ah inay samaysato business yar amba shaqo caali oo dowlad loo shaqeynayo haddaa business samayn karin adiga naftaada inaad ku tashato ilaahay inaad ku tashatid kadibna naftaada inaad ku tashatid ninka aad gursanaysid hadduu wax kuu soo zaa'idayo alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin hadduu wax soo ziyaadinayni nolosha caadiga ah waxaa waaye adduunkii wuxuu isku bedelay aniga qof kastaba aniga naftiisa leh aniga marka
gabarey amba wiilow qof ha isku haleynin, ha isdhihin naag waayeelan aroos taajirad ah lacag ay isiine, ama gabarey nin waayeelan gursana oo lacag isiina. Ha isku wereerinin, naftaadu istaag, rabbi subxaana watacaala bari, shaqadaadana qabso. taas meesha ugu baxnay. Marka waxaan usoo noqonaynaa qisadeeni. Jordan markay guriga timid maalmo joogtay bay noo mareysay oo yiri ninkii Brian ahaa qolka ijaara iska bixinay. Waayahay tiri, way u sii fikirtay asigana, way baxday online iyadoo iska fatashayso. Maalin waxay ku aragtay wiil markii ay yareed ee iskoolka dhigan jirtay, isku iskool ahaayeen ay ka heli jirtay. Wiilkaas oo maxaa la dhahaa burka la dhahay magaciisa, oo wiilkaas asiga ayada ma uunu badnayn, dhinaceeda ma u badnayn, gabar yaroo faqri ah oo waxba haysanin ahayd, ayada isku dhajin jirtay, asiga laakiin saas ma ugu helin. Wiilkii waxay ku aragtay online, kii la sheekeysatay, waxay u sheekeysay inay tahay qof shaqaysato oo shaqo khatar haysato, maxaa la dhahaa guriyo leedahay, guri inay ku leedahay, guryaha fasax loo aado oo dhinaca biyaha ku yaalo dhinaciisa, maxaa la dhahaa adduunyo inay leedahay, waxaasay ugu sheekeysay. Ada ninkan wuxuu haystay Brian inay iyada leedahay bay ninkan ugu sheekeysay. Iyadoo arrinteeda meeshaas u maraayo, wiilkii waaba wala heshiiyey, wala sheekeystay. Markasta wuxuu yiraahdaa isoo tusi gurigaaga. Ayadana waxay leedahay guriga ma ku geyn karo, mana ku soo tusi karo hooyo jiran oo kansar qabto oo kiimik ku socoto oo nolosheeda meel xun fadhiso baa joogto. Ma rabo hooyaday in lagu arko iyadoo dhibaatadas ku jirto. Mar sidaasay maalin kasta ku socotaa. Maalin kasta waxay ka dhadhicisaa wax aan jirin ee u soo alifay hooyo jiranta meesha ma joogto, laakiin asigay diidaysaa inay geyso gurigii uu arko Brian-kii oo fadhiyo. Hadhow dee Brian arko ninkan yaa waa la isweydiinaa, filinkeeda meesha ku qarxaa. Marka gabarta waxay noqotay meel kastaba been iyo barbagaan. Sheekada markay u socon weysay, hadda waaye waxay rabtaa inay suubiso balaankii ugu weynaa. Habeen ayadii iyo Brian oo guriga isla joogaan oo iska fiidsanayaan, waxay u soo aliftay kan hadda iska qaarijiyo, kii aan jeclaan jiray burka waa keensan karaa xaafadan, ninkaasi ku qaarijiya. Bistoolad u taale gurigay soo qabsatay, ninkii Brian la dhahayay bee bistoolad ila la soo baxday, beeba ku dhufatay dhowr jeer. Meeshii bay nafta ugu baxday. Ninkii bay soo qaaday, waxay ku duuduubtay guryaha oo Ameerikaanka waxay qabaan dhulka hoose oo guriga hoostiisa meel hoose qabaan. Gurigii dhulka meeshii hoose isaa u gelisay Brian-kii asoo dhintay. Waxay u wacatay wiilkii burkaha la dhahayay, u wacatay showerta inuu dhigto inay taajirad tahay gurigii waxaan u sheegtay. Kii maxay geysay gurigii oo biyaha hortiisa lahaa, meeshaasay baadhi ku galeen eebay ku raaxaysanayaan iyadii iyo burkihii. Meeshaasay swimmingka meeshiisii ay geysay isla dabaashanayaan, ninkii gurigiisii, gaariyadiisii, qamarooyinkiisii, wax guriga dhan beeba naagtii kula baashaaleysa. Arrinteedu sas marayso oo gaariyadii, lacagtii iyo adduunyada sideerta ka yeelanaysa gurigii baa waxa dhacday. Gabadhii Jordan ahayd waxay samaysay habeen kasto guriga inay baarti ku dhigato. Ayadii wiilkan ay keensatay ma ahee, gruubka dhan isku wada iskoolka ahaayeen iyo waxay la sii saaxiibin yihiin iyo waxay wax isku yihiin dhan, habeen kasta guriga waxay ku dhigataa baarti. Waa loo imaanaa, waxay dalbaysaa kaararkiisa, waxay ku dalbaysaa biiso habeen kasta, waxay dalbaysaa maxaa la dhahaa qamarooyin iyo wax guriga yaalla lacabaa, guriga yaalla iskaga baashaalaa. Habeen kastaba waxaa lagu jiraa baarti aan dhammaanaynin. Gaariyadiisii hore gadaal iskaga sii wadataa, gurigana meedaa u dhex jiifo. Ayadana waxaa shaqo ku lahaa habeenkiina baartiga galaysaa, subaxdina wayba iska seexanee, habeenka dana meesha kale kasii bilaabee. Gabadhii waxayba gashay tumasho aan dhammaan lahayn iyo faan oo dadkii loo wada faanayo. Ninkii meedkiina saa hore nigu soo sheegay guriga hoosta ku jiraa. Arrinteeda iyadoo meeshaas marayso baa waxaa dhacday taleefanka Brian inaad la soo diray oo gabar uu dhalay aabaheed weysay soo raadisay oo meel kala degan. Aabaheed soo raadinaysaa, waxay leedahay aab intee ka baxday amaha ma ismaqlin, see xaalkaaga yahay. Marka ayadana message ay ugu jawaabaysaa, waxay leedahay mashquulaan ahay, gabar saaxiibo aan nahay oo Jordan la dhahayo baa maalmaha mashquul ku wada nahay. Marka waa kaasaa taleefanka soo dirtay u jawaabay. Gabadhi way shakisay marka, waxay tiri aabahay siduu wax u qori jiray saan maaha, gabadhan siday wax u soo qorayso, message ugu soo qorayso siduu aaba igula hadli jiray ma ahan, sidee wax u jiraan. Waxay ka yaabtay message-ka loo soo diraayo aabaheed siduu ugula hadli jiray ma aha, waa si ka duwan. Way yaabtay, waxay tiri sidaan aytad wax kula hadlayo aabaha ma ahe, sidee wax yihiin, maxaa aabaha ku dhacay. Maalin kasta way soo diraysaa, ayadana jawaab ay ka yaabtay diraysaa. Markii ay sheekada gabadha si ay weysay
oo 3 wiig laga soo wareegay. Waxay tiri sheekadan ma bii anficayso, waa baxa aabbo waa inaan live ku soo arkaa. Way soo qaadatay gaarigeedii, way soo baxday. Gurigii markay saa u timi, albaabka bannaanka waxaa ka soo bilowdaba meel qashin la iskaga daadiyay, wixii cunaanba meesha ku daadiyaan. Bay yaabtay gabadhii, baarkinka soo gashay. Gabadhii oo Brian dhalay albaabkay soo garaacday. Yaa ka furaaya? Gabadhii guriga maxaa la dhahaa qabsataa ka furaysa Jordan. Markay ka furtay bay waxay tiri yaa tahay adiga? Adiga Jordan ahay dhahday. Gabadha iyadana way weydiisay adiga tahay? Brian gabadhiisa ahay tiri. Naagtii guriga qabsatay Jordan la dhahayay maba filanaynin. Waxay ku noqotay surprise ku noqotay. Waxay samaysay albaabka inay balaqday. Cagtay wax ka dayday. Way carartay. Gaarigii meeshii yaalay ku dhacday. Hore u sii baxday. Ayadoo yaaban ee guriga gashay, gurigu u rafaadsan markay aragtay booliis ay wacday. Booliiskii ayaa yimid. Markuu yimid waxaa la sameeyay taleefanka aabbaha Brian waxaa lagu sameeyay in la ogaado meeshuu taagan yahay. Markii la fiiriyay aabbaha taleefankiisa wuxuu taagan yahay supermarket oo meel dheer ku yaalo oo Walmart ay dhahan America. Meeshaas uu fadhiyaa maxaa la dhahaa gaarigii. Waa la baxay meesha loogu tagay gabadhiya ku jirto waaba la soo qabtay Jordantii. Markii la soo qabtay stationka la geeyay sida ku dhacday guriga Naasaan yeeshid ninkii Brian la dhahay taleefankiisa haystid intay geysay waxaas la weydiiyay. Way diiday inay wax u sheegto. Waxay tiri ma ogi ma arkin ma maqlin. Ala ay taxal gabadhii waa la cadaadiyay meel ku fakaraysa ma laha yiri ninka taleefankiisa gurigiisa gaarigiisa adaa haysato. Warka soo daa waqti dheer cadaadis markuu lagu hayay waxay tiri waan dilay ninka wuxuu ku jiraa guriga meesha hoose uu ku jiraa wuu dhintay meeshan anaa ku baadhigareeyay waa kaasaa maxkamadda la saaray go'aana loo gaaray xabsi daa'im dhab lagu siiyay. Baxar waxay iska riday inay baartile iska aado dadkana ay show u dhigto daraadeed ee baxar isku riday. Saaxiibayaal dhacdadeena maanta intaas ay ugu eg tahay. Rabbi subxaanahu wa ta'aala waxaan ka wada baryaynaa raxmadiisa waasice jannada firdawsi ala inuu nagu wada geeyo kulligeed sidaan wada dhannahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.